Hello qaraabo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada episodekii labaad ee Mali Junior taariikhdiisa ama saa isku wada ogeen waxaan kasoo bilaabnay kooxda Southampton koox yar waxaan umaleynaa kaalmaha 18 ilaa 13 u dhexeys kaalmahaas ku jirnaa hadda marka caalamiyeed yar sameeynay oo isbuucane maadaama kooxda jawiga aan ku jirno oo aad iyo aad u xun yahay sababtoo ah kulamo qaar nagama soo safo kulamo qaar ismuujinayaan waxa waaye line-up dhan nagu soo daro soo dhameysanay waa soo dhameysanay caalamiyeedna soo dhameysanay kulankood marka 7 marka mareysana la keenay Mali Junior waa la keenay Fulham soo marka kulankan waxaan rajeynayaa inuu wax ka soo qabado Kamaluddin lagu bedelay yarkan waxaan maleynaa Nobin Odilo maleynaa adii 9 daqiiqo markay mareysay foul lagu la galay waxa waa ninka Mizmi Ronaldo iska dhigeen maantadi waxa waa Mali Junior waa Ronaldo yani number 7 waa lagu adkeeyay in dhiibo number 5 ay dhiibeen waa saas hadda aan ku socnaa maadaama hadda kooxda aan wax saas u fiican aan ka haysanin maaragtay waa macnaha laakiin players u fiican mihi mar walba macnaha like player oo line up mar walba ku jira mihi hadda waa kaas u jeedin frustration ka inta ugu kac jaalan qaadan daqiiqadii ugu dambeysay 9 iyadoo marayso jaalan qaadan ciyaartan si ku soo dhamaatay marka maadaama player weyn aan ahayn oo ilaam ku darnaaday waxa la loo xarimin heli karin marka waa iska arkayna saan iyadoo tahay walaa kooxaha qaar hadda oo arkay ama aan ay ugu soo dalbanayeen koox badan ama ay ugu soo dalbadeen laakiin waxaan ilaahay ka bariyaa dhaawac wax la dhahay inuu Somali Junior ku dhicin 14 daqiiqo dheelay wax isku day iyo wax oo shot on target waxba ma sameeyeen marka waxa ilaahay ka bariyaa inuu dhaawac soo gaaro oo saan hadda dhaawac ku soo gaaro game-ka wax ka xumalaan adduunka taas aan nacbanaa wallahi hadii dhaawaciisa wax yar ma ahan 4 bilood aan fahanti hadda kooxda meel ka socota email kala ma aqaan bismillaahir rahmaanir rahiim ama ay ugu soo dalbato waxaan intiin ka Southampton ay fiican be kulanku markaas 2 daqiiqo la keenay anna 8 daqiiqo jaanis la siiyay faande Theo Walcott lagu bedelay Garawadelo markaan marka kulankan Anfield waaye Anfield kooxda aan Liverpool ama mustaqbalka aan u dheelo aan jeclaa marka inaan hadda ismuujiyo aan faantaadi aan club iska gado famino waxa waaye weerarkeen ugu horeeya soo qaadnay adiga waxa daqiiqado badan ma ka soo wareegin laakiin finishing-keega wuxuu yahay Ebron ku dhaano waa khasaaray kubadii ku meeshan anay iga sii daran yihiin kubad banaanka Americaas anay 3 farisi dheereen Alisson waan sugoyaa wallahi yaaba wallahi markana waa kana Mali Junior waa soo galay kubadaas waa uu soo saaray Mali kubadaas markana player Southampton ma naqaan wuxuu yahay kubada shoot what the hell maxaa meesha wareego bisingo ruuxana ka daranay marka Liverpool soo qaaday weerar soo qaadeen waa ka qaadnay ay banaanka dhigay banaanka ma aanay qurux badan oo si wallahi hal assist soo haystaa faanti Anfield assist ku sameeyay kulanka waxana wixii kulan Manchester United oo wixigu waxa rajeynaa kulanka Manchester United inay dheelo asna saan oo kale aan wax aadiya laakiin xitaa ugu yaraan assist aan ka helo faanti maadaama lagu soo bilaabin assist hada ka helo waxa waaye xogaar indhaha caalamka xogaar way arkayaan moogtahay kooxaha weyn marka iyaga iska soo bandhigtay qaasatan Liverpool oo kale marka iyaga aad wax adiga bandhig fiican aan kala hor imaatid maaragtay oo mar alla markii club oo macnaha oo ku gadanayo daqiiqada ugu dambeysay hal daqiiqada lagu daray weerar helnay oo counter attack oo aad iyo aad waxa waaye orodkii kiilo orda Robertson ka oradaas laakiin day xaasidnimadu ay qowday mooska ka fasax Robertson maxay hartaa jaala maan Rossi Albito 3 kulan toos ah maqnada ninkii xaasidnimekeeda u jeeday bismillaahir rahmaanir waxa halis dhaawac halis ugu jirnay daadi bisminko ciyaartaas ku soo dhamaatay oo maleena biso wax kale u dhiman baad ciyaartaas ku soo dhamaatay of course 3-1 ay caawina hadda aan ku soo yeelay Anfield ay 8 daqiiqo dheelam 9 daqiiqo meelaha dheelanay karan war horta kooxaha yarsaana waxa ku nacaysaanayno sababtoo awood xitaa hada playerka 32 awoodiis faanti xitaa Mali Junior hadoo awoodi 9 oo hala xitaa kubadda kaligiis inuu dheelay hala sababtoo wax ma raaca karaan wax ma sameey karaan hadda waa kan 9 daqiiqo dheelay 6 pass complete gareeyay waxa waaye kulankii kala Manchester waa lagu adkeeyay mobile soo safinba faanti xalay dhahay nagu kala wada leedano
وحاملنا مدام إصاصة فينا وبرجع قلين أو أمسترون أقول لي راشفورد أقول كده لي بركة كلن كان كلا أو برايتون أثناء اللي مصاصة لا إله إلا الله برايتون ما إذا لا حتى سوى حودينها بسينكو كل قاعد بدوايين بخالتك إيجابس كلام مركز وبديان شيء آدم وحقول شكرا لي آدم أمسترونغ Brighton marka kulanka kale noogu xiga wuxuu ahaa Nottingham Forest kulankaas marka kulankan waa lagu soo bilaabay sababtoo ah Almeytada waa qaadanayay Shea Adams waxa soo gaandhay Adams ma aha mis qof horta dhaawac yar soo gaaray xanuun yar oo soo maqnay taas booskis lii buuxiyay ma aqaa wallahi Soomaalnimada ma ciiloy ma aqaani kulankii ugu horeeyay abid aan ku soo bilaabana Premier League oo malana kulankan inta kala bedel aan ku imaanay waa rafaad sanaadadan hadda xogaa waa sheekada waxaan dhigi karaa waa ay toostacmalno kubada badan ay sameeyay jaanis badan aan sameeynayaa jaaniskan oo kale ee kubadana kale hadda kubadana waxa islaayba maano ama ku taabta albitra waa qeylina si wax wada albitra ma dhacay bismillah ninki gacmo taag wax fiirhe ay kubadan kale waa kana ee miisi caadi ku noqday miisi caadi ku noqdo la dadka inta kubada ani kubada isku dhijinaa ma jecli waa ka deeqsi ah kubada waa baasa turu dash حلا عنقان مكول مداني كمال الدين مالا ما قانية سوى دليل ساعة كبد وسوق جنبنا أنا بحا بلاير معناها لكن وضد حارك أو كل وريجا أنا سومالي واحد لكن سومالي بحا يصير دير تيم بلاير عم فهمتني مال جونر تيم بلاير أو سيدير واي تبراه iyo kooxdina hal mar la farxaan al rabaa ma fahantaadi hada caawintiis labaad oo sabku helay half time asaas lagu maray ay Cambios ku soo dhamaatay marka waa arkayna Cambios wuxuu qaban doono markana waa kana Male Junior ay kubad kale waa laga qaaday laakiin جبس وايد كقاعدة وسوعتي لكن ولا حوق بدية حوق ميل كمها ودلالة لكن ودلالة أي لكن بنانك أو بحدي ولا ذا وخسارتي ودلالة سمعت هذا ودلالة والله شو ده لكن شو ميل كمها إنه إن شاء الله هذا الميتة والله حد وأكيد دونا هذا أنا كبدا ميلهاس كده الله مستقبل كأكيد دونا إن شاء الله don't worry هذه كبدا لكن كبدا يويا كبدا ميدانا كبدا قدح أنا كسوقاتي هافكي أنا كسوقاتي أنت كسوقاتي soo socda wixii goor maal orod iyo gambis isku gud daray ma fahanti ayarka marka makiini maal dhaha shaft nagu soo kacay taas rigoor lagu dhigay Southampton rigoor aan loo dhigay mar kulkaan si ogta ina badanina u maleynaa laakiin ani ilaa 9 kinaan dheelaaro sababtoo ah 9 ka albiter had ande tobraad imuusan bixinin rigoor arabi laakiin 9 maxaa dheelaa waxa ka cabsoonin aan dhacay rigoorada markay dhaliyeen ka bacdiba waxa imaatay dhaawac yar dhaawacyarna wallahi ma dhigi kariyo sababtoo ah muruq haystay Male Junior faantay waxa ka ordaya intaan ay sababtoo dhaawac hadda waqtigan kala soo gaaro aad iyo aad u xunta wallahi soo ugu soo kooda soo hadda oo islaayb hoos u sii dhaca moogta booska hadda Southampton taa uu sii dhuminaa waxaan oo imaaday marka yarkii oo aan physiotherapy ga noo imaaday dhaawacii wixii oo nala wadaagay warqadii wixii noo dhiibay dhaawac markuu wuxuu noqday mid 2 bilood aan ku maqnaan doono faantay marka walaalkiina Male Junior u soo daayay miskiinka 2 bilood maqnaan doona labadan bilood maqnaan doona insha Allah taala marka episode kanta noo keena waxaan leeyahay soo dhawaada episode mid kale inta gaarin waxaan leeyahay khayr badan bye bye